magacaaga nagu bilaabaysaa waxaa sharaxaad kooban naga siisaa halkan iyo waxa laga degay dadkan degay meelaha ay ka kala yimaadeen iyo roobkan laga degay magaciisa oo kale waxa loo yaqaan Soomaalida هذا مقعد كوب الله وعبد آدم أحمد رب ضير اللي يرى وي أولنا هرضا هاي هذانا يراضي دور جهال قصر روب راعي ويري هاي سيدان أركا إنسان عريري يعني كل كان بكجرة يلا أن بجرته عافمات درو وحاجرته ضدك حقي ساه هلس كجرته دجاج عريري بالوجوه مقعد كوب الله وعبد آدم أحمد رب ضير اللي يرى وي أولنا هرضا هاي هذانا يراضي دور جهال قصر روب راعي ويري هاي سيدان أركا إنسان عريري يعني كل كان بكجرة يلا أن بجرته عافمات درو وحاجرته ضدك حقي ساه هلس كجرته دجاج عريري بالوجوه هذا ودن بدن oo waxa laga soo roob raacay ilaa jahadan ah oo bari baa loo raacay bari waa tahay ilaa inteeba laga kala yimid deegaanada laga kala yimid maxana wax xusi kartaa roobkan laga kala yimid oo hadda dadkan ka yimid ilaa waxa laga yimid Galisoor meesha la yiraahdo wixii marar bulka soo rogan dadka inta isuga yimid dadka dega halkan degsimadan maxaa lagu qiyaasi karaa tir ahaan anigu hadda ma qiyaasi karo laakiin dad la koobi karo ma ahan wax kooban baa mise waa ilaa meelo badan bisii jira wax kooban way area wax u dhaxeeya meelka meesha la yiraahdo Xandho iyo Baxdo iyo meesha la Dawgaab waata bal maadaama carro koro ka timaadeen ka warrama dhanka xoolaha kale maxaa isbedelaho laga dareemo markii roobka la keeno xooluhu ilaahay maadii markii hore waa ku naacawsadeen hadda markaa madowgiina waa la isteen waana oomeen biyo la cabo waa la waayay hadda xilligan dhaanka aan wado waxa loo wadaa biyo kayu loogu jiro oo ceel xaraara waata dhaankan oo kale waxa saaran haabankii hore Soomaalida inta badan hadda caagad bir rarata marka intee xaafadda ku qatimaysaa biyahan xaafadda waxay ku qatimaysaa maadaama ay yar yihiin oo si dhib lagu keenay waxay ku qatimaysaa laba beri ceelka u dhaaninaysa maxaa la yiraahdaa ceelka u dhaaninaya ka Xandha la yiraahdaa matoorku waa ka hadlaysan yahay baraag male biyo ma gelin ceel xaraaraha laga soo dhaaminaya waa tahay adoo fursadda ka faa'iideysanaya maadaama warbaahintii maanta kugu soo boqotay xaafadaada maxaa baaqa ugu dambeeya maxay tahay adoo reer guraaga afkooda ku hadlaya diraysa
aduu dadkaas waxaan dirayaa aduu ilaaha mahadle ilaahana risaqa bixiyo wixii wax tari kara ay biyo iyo haddii ilaahay ku idmahayo caafimaad xagga dawada dadka iyo dunyadaba ay ugu kaalmeeyaan oo waxa lagu baahida badan yahay taa wax loogu baahida badan yahay aad u mahadsan Thank you.